Soomaaliya iyo Somaliland dadkaas walaalaha waqooyiga Soomaaliya ku nool ee Somaliland taariikhdooda waa garanayna iyo dhibaatada maanta taagan meeshii ay ka bilaabatay aniga intaana xafiiska imaan ka hor dadaalka waa la soo bilaabay waa socodiyay markaan inidayna xoogan ku sii daray laba mabda oo waaweyn ayaan anagu qaadanay beriga aan nimid xafiiska markaan iswarsanay Somaliland see laga yeelaa markaan dhahan mid waxa waaye Somaliland haddii aanan ku guulaysanaynin oo midnimadii dalka aanan keenaynin inaanan uga darin horta meesha ay joogto aanan ka sii fogeyn oo tabasho hor leh iyo tiiraanyo hor leh iyo maxaan ku raadaaye colaad hor leh inaanan sii jirin dadka reer Somaliland iyo maamulkooda dowladooda iyo inaan ku dadaalno inaan muxuu ahay midnimadii ka shaqeyno dadka inaan muxuu ahay wanaag cilaaqaadkii iyo kalsoonidii inaan soo celino luntay maxaan dhahna marka arrinta midnimada waa arrin siyaasadeed waxaan ku kala duwanahayna waa arrintaas siyaasadeed oo ay walaalahaasi tabasho badan ka qabaan aan daaweyno aan dhahnay taas aan aadno laakiin waxa siyaasadda ka soo haray iskuma haysano kuma dirsanin kuma kala duwanin dadka reer Somaliland inay horumar gaaraan dhaqaalahoodu inuu kor u kaco maxaan ku yidhaha dhulkoodu inuu dhismo annaga waxaanu arkaynay wanaag iyo guul annaga aan gaarayno umaanaanan arkayn wax dad yani wax cadow leeyahay oo cadow laga dhigay umaanaan arkayn sidaas daraaddeed arrimaha bini aadamnimada ee humanitarianka arrimaha horumarka waxaan go-aan ku gaarna annaga inaanan siyaasad la gelin oon la siyaasadayn siday hadba ku yimaadeen ay suurtagal ku yihiin in lagu socodsiiyo sidaasaan annaga dowladda Somaliland berigaa joogta aan kula shaqeyno waxaana daliil u ah sanadkii 2015 Soomaaliya waxay dhoofisay xoolihii ugu badnaay ibad taariikhda 5 milyan oo neef xoolahaasi inta badan dekada Berbera laga dhoofiyey laakiin dhulka Soomaaliya oo dhan ay ka tageen gobolada dhexe ka tageen koonfur galbeed ay ka tageen xoolahaasi waa la wada qaaday dekada Berbera waa laga wada dhoofiyey maadaama dadka ganacsatada xoolaha ee reer Somaliland waayo aragnimo badan iyo khibrad badan iyo cilaaqaad badan oo dhinaca ganacsiga xoolaha ay leeyihiin shaqadaasi aad u qabteen dowladda Soomaaliya wixii looga baahnaa uga aadana ee magaca Soomaaliya ku imaanayeen waan fududeynaa annaga Somaliland la diidan oo xagga taagan muxuu ahay loo waxayna maanaan dhig kaalmada caalamiga ee Soomaaliya magaca Soomaaliya ku imaanaysa Somaliland waxay in gaar loo siiyo oo si gaar ah oo ayagu ay u qaataan ay isu maamulaan waan ogolaanay waan ka shaqeynay waliba caalamkana waan ka gadnay wali intaan geynaan dhaanay reer Somaliland waxaanay rabaan ha loo ogolaado siyaasad ma ahayn annaga Somaliland intaas ka bidi siyaasadana waa ka wada shaqeyn shirar badan isugu tagnay Istanbul isugu tagnay Djibouti isugu tagnay laba heerna waan ku galnay heerka hoggaanka siyaasadana waa uga wada hadlaynay heer aqoon-yahan iyo bulshada rayidka ah dadka intellectualiska loo yaqaano maanisada waa labada dhinacahna laba kooxood u samaysnay waa kulmi jireen mar walba si loo soo fududeeyo qadyadaha طبعا هوشو تبشب دير او غامرتيا ku jirta waqti qaadanay laakiin aniga dadka aad iyo aad ugu rajaweyn Somaliland iyo Soomaaliya inay is afgaran karaan oo ay heshii karaan oo wax ay ku heshii karaan dadka aad iyo aad ugu hanweyn haddana haddii aan talada ku soo noqono muhiimadaha ugu horeeya ayay looga mid tahay